السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابت وسلامتين دونو دافعين ميل كستو كجوكتان halkaad naga daawanaysaan waa Mo Talyaani fadlan haday tahay markii kugu horeysa soo booqato fadlan subscribe saar waxaan bilaabeynaa koorso cusub aan ugu magac darnay General Knowledge Accounting oo macna ahaan noqon doona ama u dhawaan doona inaad si guud u fahantid sida uu u shaqeeyo accounting-ka waa maado gaar ah loo barto sida financial accounting cost accounting oo kale accounting-ka aad ayuu muhiim ugu yahay ganacsiga iyo dhaqaalaha lesson 1 casharkeena koowaad waa introduction sida ogtiin cashar walba wuxuu leeyahay introduction haddaan bilaawno introduction keena what's accounting waa maxay accounting is a language of business oo macnaha noqon doona maadada accounting-ka waa luqadda ganacsiga sidaan ognahay wadan kasta wuxuu ku hadlaa luqad gaar ah dadkaas luqadda ku hadla way isfahmaan haday dhacdo wadankaas luqadda dadka isfahmay ku hadlaan day imaadaan dad kale aan u dhalin wadanka waxa qasab ku ah inay bartaan luqadda wadankaas looga hadlo si ay u fahmaan dadkaas haddaba hadii la rabo inaad bilaawdo ganacsi oo aad taqaanta accounting-ka haddaba waxaad haysataa furihii ganacsiga another division qeextaan kale accounting-ka waa the system recording in wixii si sax ah loo diiwaan geliyo ama loo qoro oo waxaas waa maxay wixii shirkadda ka dhexdhacay kadibna in la helo reporting warbixin dhameystiran step-ka saddexaad oo ah analyzing in wixii la falanqeeyo ama la fogoro oo waxaas waa maxay waa financial transaction dhaqdhaqaaqyadii dhaqaale ee business-ka ka dhexdhacay haddaan soo koobo aan si practical ah ku fahansiiyo the system recording in wixii wax kasta oo ganacsiga ka dhex dhaco waa inaad qortaa hadii shirkadda ay alaab iibiso haday alaab soo iibsato shirkadda deynta ka maqan hadii ganacsiga oo ninka meesha iska leh maal geliyo hadii kira la bixiyo hadii koronto la baxsho hadii salary la bixiyo every transaction ee business-ka ay ka dhex dhaco waa inaad qortaa qofka mas'uulka ka ah laga rabaa inuu hawshaas qabto kadibna in wixii reporting warbixin la helo reporting-kan waxa waaye reporting-ka shirkadda maxay asad leedahay maxaa shirkadda deyn lagu leeyahay maxaa shirkaddan deyn ka maqan shirkaddan intee taagan tahay qasaare may ku jirtaa faa'iido may heshay dhexdhexaad ma shirkadda reporting-kan waxa laga rabaa qofka xisaabiyaha analyzing in wixii la fogoro ama la falanqeeyo oo wax la falanqeeyo waxa report-kii la soo gudbiyay yaa falanqeeynaayo manager-ka dadka shirkadda oo mas'uulka ka ah ayaa falanqeynaayo wax walba oo markaas loo soo gudbiyay haddaba sidaan ognahay waxaa jira ganacsiyo qaar aan waxba qorin ilaahay noqoma keene waxaad arkaysaa company shirkadda la furaa shirkaddii aad iyo aad u shaqeynaysa dhaqdhaqaaqii dadka alla ilaahay waxay leeyihiin company-ga aad iyo aad u shaqeeyaan deeto waxa maqlaysaa ninkii shirkaddii ayaa goostay wuxuu la goostay lacag 50,000 20,000 30,000 ayuu la goostay waxaad maqlaysaa hebel wuu cararay hadii qofkaas laga daba tago ama la wareysto oo la weydiiyo waxa laga yaabaa wadankii ama inuu ugu baxay gaari caasi inuu ugu baxay oo san shilin haysanin maxaa keenay shirkadaas oo saas ninkaas ku dhacay system recording ma jirin wax la qoraay lacag deen ama waxa loo dhiibanaa lacagta amaana loo dhiibanaa business-kiisu dhaxgelina oo ku shaqeynaa sidaas waxa keenaysa in lacagta ay dhunto aan waxba la qorin the person in charge accounting qofka xisaabiyaha ah isna waxa loo yaqaana accountant xisaabiye and this individual shakhsigaas required waxa looga baahan yahay to follow inuu raaco the set of rules and regulation xeerka iyo nidaamka la dejiyay oo la isku raacay haddaba maadaama aan dhahan accounting-ka waa luqadda ganacsiga maadaama ay luqad tahay waxaa jirto xeer la dejiyay oo accounting-ka ah sajaas xeerkaas waxa kamid ah
general accepted principle oo loo soo gaabsho GAAP. Accounting allows wuxuu ogolaanayaa company-ga to analyze inuu falanqeeyo financial performance wax qabadkii ama dhaqdhaqaaqii of the business ee ganacsiga ka dhex dhacay and look in isha lagu hayo at statistics xisaab ahaan in isha lagu hayo such as net profit maxaa xaasil ah oo soo haray shirkadan. Shirkadda faa'iido way imaan kartaa, khasaarana way imaan kartaa, ama shirkadda dhexdhexaad way noqon kartaa. Waxaa ceeb ah inaadan ka warqabin shirkadaada meeshay taagan tahay, inay khasaaro ku jirto iyo inay faa'iido ku jirto. ceeb ma ahan inay khasaare timaado, waayo ganacsiga waxaa loo furtaa inuu laga faa'iido ama inay khasaare timaado. Laakiin waxaa ceeb inaadan ka warqabin ganacsigaaga meeshuu maraayo. casharkeena lesson 1 maanta meesha ayuu ku egyahay. insha Allah casharkeena xiga inta ku kulmeyno waa anigoo ah Maxamed Abdiraxmaan Cali. fadlan hadday tahay markii kuugu horeysa aad soo booqanayso, fadlan subscribe saar channelkan oo share dheh casharkan gaarsii asxaabtaada.